Saddex saaxiib oo cabsida jeclaa ayaa habeenada ka mid ah waxay go'aansadeen inay aadaan guri qadiimi ah oo muddo hore ugu dambeysay in la dego. Danta ay ka lahaayeen gurigaasna waxay ahayd inay ku tijaabiyaan geemka la yiraahdo Ouija board. Mike, Emily iyo Lana waxay markaasi dhex galeen gurigii. Guriga agagaarkiisa oo dhan waxaa ku yaalay geedo markaasi qalalan. Sidoo kalena miisaska guriga dhexdiisa yaalo waxay ahaayeen kuwo dhaadheer oo qadiimi ah. Markaasi waxay go'aansadeen inay ciyaarta dadajiyaan oo boodhka ayay ka saareen miisaska mid ka mid ah ayakiina geesaha ayay ka fariisteen, gacmaha ayayna kor saareen. Geemkani si loo dheelo waxa uu leeyahay qaacidooyin tiro badan si markaasi aysan kugu soo jeedin waxyaabo xuna. Qaacidooyinka mid ka mid ah waxay tahay in gacan yaraha markaasi kor saaran boodhka inaan mar laba gacanta laga qaadin, sidoo kalena uusan dhulka ku dhicin. Waxaa kaloo qaacidooyinka ka mid ah inaadan gurigaaga sidoo kale ku dheelin amase adigoo kaligaa ah aadan dheelin. Qaacidooyinka badanaa saaxiibadani way xifdisanaayeen, sidaas darteed way isugeen. Lana ayaa weydiisay su'aasha ah cid miyaa xaggaa nala joogto. Qof walba wuu aamusay, gurigoo dhanna sharqan ma aysan ka jirin ilaa ay dabool cusub bilaamatay inay soo dhacdo. Kadibna gacan yarihii kor saarnaa boodhka ayaa waxa uu ku dul istaagay xarfaha ah YES. Lana markaasi saaxiibadeed ayay eegtay ayadoo isdhahayso ayaga ayaa dhaqaajiyey oo baranka ayay kugu samaynayaan, laakiin gudaheeda waxay ka dareemaysay cabsi saa'ida. Markaasi xoogaa si u aamusnaayeen oo ay dabayl culus guriga ka dhex yeerayso ayaa Mike wuxuu weydiiyey su'aasha ah magacaa. Markaasi gacan yarihii ayaa wuxuu u dhaqaaqay xarfahan oo ah ALEX. Saddexdii saaxiib way isfiisheen. Kadibna markaas ayuu weydiiyey su'aasha ah adiga miyaa gurigan lahaan jiray. Kadibna gacan yarihii wuxuu u dhaqaaqay xarfaha ah NO. Markani saddexdoodii waxay dareemeen cabsi saa'ida sababtoo waxay yaqiinsadeen inaysan kaligeed meesha ahayn oo uu markaasi la joogo waxaasoon bil'aadan ahayn. Intaysa su'aal weydiinba ka hor gacan yarihii ayaa xarfo ku istaagay. Markaasna Lana ayaa akhrisay, wuxuuna markaasi ku istaagay inuu dhahay waa xiranahay. Intaas markii uu gacan yaraha ku istaagay ayaa markaasi dhulkii wuxuu bilaabay inuu gariiro. Darbiyadan waxaa moodaa in la garaacayo garaacid fog. Kadibna Emily ayaa weydiisay xagee ayaad ku xiran tahay. Kadibna gacan yarihii ayaa ku istaagay xagga hoose. Markaasi way baqeen. Kadibna mar kale ayay weydiiyeen maxaa tahay. Hal eray ayuu ugu jawaabay oo ah waxa soo kacaya. Markani si saa'id ayay u sii cabsadeen, garaacidiina xoog ayay u sii badanaysay. Kadibna waxay damacday Lana inay gacanteeda ka qaado, laakiin gacanteeda way ka dhaqaajin weysay gacan yaraha. Markaasna bahalkii wuxuu u dhaqaaqayaa si aad u xoog badan oo hadba eraya ayuu ku istaagayaa. Emily markaas waxay dareemaysay cabsi saa'ida, waxayna dhahaysay ma ka helin arrintan, aan ka cararno meesha. Markani garaacistii ka yeeraysay darbiyada ayaa waxay bilowday inay ka yeerto dhulka xagga iyaga ka hooseysa. Markaasna qayle ayaa ku xigtay, qaylo dhaga jabisna aad ayay u baqayn. Mike markaasi wuxuu go'aansaday inuu meesha iskaga cararo. Albaabka dhinaciisa ayuuna ku orday, laakiin intuusan gaarinba albaabkii ayaa iska xiray. Qaladka ay sameeyeen waxay ahayd in markii uu Mike cararay markaasi uu gacanta gacan yarihii ka qaaday. Kuwii kalena ayagoo cabsanaya way ka daba carareen, wayna ka qaadeen iyagana gacmaha. Markaasna tooshka yarka ay wateen wuu ka damay. Markaasna meeshii dhan waxay noqotay mugdi. Ayaga xataa isma arkaan, waxa kaliya ay maqlayaan waxay tahay ayaga neeftooda iyo sidoo kale sharqan aan moodin in darbiyada la xagxaganayo iyo inuu wax ku soo socdo oo kale. Hal mar ayay Emily qaylisay. Markaas waxa ay dareentay gacan aad u dheer oo afkeeda qabanayso. Gacantii ayaa waxay u jiidaysay dhinacii dhulka hoose meeshii ay fadhiyeen. Markaasna ayadoo damcaysa inay saaxiibadood gacanteeda u taagto ayay gaari weysay. Kadibna dhulka hoosteeda ayaa si xooga loo gashay, taasoo ku sababtay inuu jirkeeda qarxo, dhiigna meeshii wada noqoto. Mike oo markaasi dareemaya dhinaca Emily ka xigto ayaa wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo asagoo dabagelaya sharqanta ayada ay samaynayso. Marka uu siri badbaadina asagana gadaal ayaa loo qabtay. Asaga markaasi waa la kala jeeday, barta ayuu ku go'ay asagoo weli nool. Kadibna dhulkii ayaa la gashay. Lana ayaa kaligeed soo hartay. Markaasna way qaylisay, dhabarka ayayna ku haysay darbiga. Kadibna waxay tiri waa ku bariyaa naga raali noqo, waa ku bariyaa jooji. Markaasi ayuu ku dhaqaaqay gacan yarihii erayada ah waad ka soo daahday. Markii intaas aragtayba isla markiiba
gacan dheer ayaa lugteeda qabatay, hoos ayaana la bilaabay in loo jeedo. Ayada oo isku daysay inay nafsadeeda badbaadiso ayaa waxay bilowday cidiyaheeda inay dhulka ku qabato, laakiin alwaaxi ayaa cidiyaha ka galgalayay. Dhiiggeedii oo cidiyaha markaasi dhulka ku xoqaysay ayaa calaamad dheer ka tegay. Ugu dambeynna isla dhulkii ayaa iyadana la gashay. Hal mar ayaa gurigii qayladu isqabsatay oo wada aamusay, kadibna gacanyarihii wuxuu ku istaagay erayada ah macsalaamo. Tooshkii ay wateenna wuu is-shiday, albaabkii xirmayna wuu is-furay. Meeshii markaasi saaxiibadii loo jiitay ayaa waxaa ka qoslay wax madow oo bartaasi ku jiray.